waxaan filan lahaa meeshan ay ku qoran tahay suugaan kacdoonka dhalinyarada xaqa uga maqan galmudug inaad ka dhigtaan ma fiicnaan arrinta caawdaaqana waa arrin dhexdeena aniga waxaaba igu filan odayaasha iyo booliska meelahan soo qabtay aan nooga filan waxaan u maleynayaa kulligiin anu jaamacad ma dhamaynin afkaygaan xoogaa iska gargaraacdaa laakiin jaamacad ma dhamaynin kulligiin jaamacadaad dhamayseen shahaadooyin baad wada haystaan meelaad u shaqo tagtaan ma haysaan waxyaalaha galmudug ka socda war uma haysaan subax baa 16 xildhibaan iyo 5 wasiir iyo inta meel lagu magacaabay iyo madaxweyne ku xigeen yaan hoosteedii iyo qaabka loo maamulay iyo percentage-ka qof caawa iga jawaabi kara shaqaalaha galmudug intuu yahay intaad percentage ku leedihiin ma la idinku arkaa waa maya waxaa hadda igu maqaala 400 oo macallimiin ah in wasaaradda waxbarashada loogu deeqay haddii percentage xildhibaanada galmudug 89 weeye percentage loo qaybsho 16 xildhibaan waxaad ku helaysaan 80 macallin haddii la idin roonaanayo oo la leeyahay ayagu deegaamada wax wadaagayba gaar ka sii yihiin ha loo sii kordhiyaan 100 iyo wax ka badan baad heli lahaydeen haddii saan la isu tuureyn xisaabta timaadaan intaas heli lahayd waxaan maqlay 40 qaata la iyo 30 ta loo yeeray dad magaaladaana waxa carrada ka socda waxaas iyo wax ka sii hooseeyo weey maalin dhawaad maraan isku dayay xalafad cali masaar oo baran ballahayd inaan waxyaalaha ka jira aan muujiyo dhibaato badan baan kala kulmay hadda waxaan u maleynayaa wariyaal baa jooga duuba haya mana aaminsan inay soo daynayaan codkayga waxa weeye saxaafaddu galmudug xor maaha gabaygaan tiri wariyaasha kaamarayaasha baa laga aruursaday waa la qariyay intaan gaarigayga dhex galay WhatsApp ku duubay baan Nairobi nin jooga inta u diray soo diyaari waa soo marin meeshii aan ka hadlay oo aan gabayga waa idin marin doonaa aan ka sheegay aniga kuwii dadka igu xigay oo igu matalayay baa igu dhibaateeyay waxa istaagay wasiir Cabdi Waayeel wasiirka arrimaha gudaha wuxuu yiri xaal qaata gabayga abwaanka xaal ka qaata raalle ahaada hurdu ka soo kacay waxaan anigu haldamayeen waxa weeye waa idinka waxaan anigu halgamayaa waxaan ka hadlay dib u heshiisiinta asaga $500,000 faa'iido ku qaba dib u heshiisiin hadii la qabo asaga aan qorqor u canaanahay iyo maamulka galmudug asaga baan ay dhabar jabshay gudoomiyaha balanballe oo aan qorqor xilka qaada karina golaha deegaanku doorteen iraadagool wuxuu yiri aniga abwaanku galmudug baa xil u doonay waa soo wada weynay xil baan helay asaguna waa caraysaya marka waxaan leeyahay marka la soo korsaye abwaanku marka la xil kale soo korsaye inta raadsado gabaygiisina 14% idin ka raali galinayna raali ahaada leey nidaamka dawladnimada sidaas ma aha waxa ayaga leekad inay dhahaan waa maadsan yahay abwaanku dawladnimadu waa in la isdhalilaa wuuna dhalilay wixii aan qaabanana waa qabanay wixii aan ka gaabinana gadaal baan ka hagaajin doonaa intaas ayaga leekad waxa weeye marka deegaanada waxa ka jira war uma haysaane waxa weeye hasha markay dhasho ilmay dhashaa ilmuhu ama waa ka baqtiya ama waa laga bireeyaa maqaar baa loo saaraa hashaas waxay u qabtaa ilmaheed inuu nool yahay maqaarkaas haba ku goldataa ma garatay galmudug biraysan oo aan mas'uuliyiintiina waxa idin kugu maqan yihiin la arag yaa maqaarka waxa la idin kugu saaray galmudug baad ka mid tihiin ma garato maqaarka aad dawranaysaan ilmo nool kuma jiraan waa qolof caanihiina rag baa maqlay kama waabanayo runtaan sheegaya inaan sida aan u u soo bandhigtaana waa jeclaayo inaan wariyaal haddaad tihiin inaan xuquuqdeeda ku tuman markaana waxaan guda gelayaa gabayga aan ka tiriya anigu aan deegaamadan ugu doodo aan ku dhaliilay dawladda qorqor iyo qaabka uu wax u maamulay waxa ugu yar iska daa wasaarado iska daa wax kale iska daa shaqaalaha waxa ugu yar golaha deegaanka balanballe 4 xubnood buu beeshiisa ka siiyay xogahayihiina wuxuu ku qoray beeshiisa 4 golaha deegaanka dhuusuma reeb oo aan bar lahayn 4 golaha deegaanka xogahayihiina beeshiisu siiyay madaxa arrimaha bulshada ma siin Soomaan garan cawdaqna golaha deegaanka xubin dheeriyo ku dara 5 xubnood oo golaha deegaanka ayagu leeyihiin waxa laga quudeynayaan idinka deegaankiini way cid aqoonyahana ama ka hadashay ama oday guurtiyo ka hadlay oo ama ku dhalilay dawladda galmudug ama ku cambaarayna la idin kuma arko markaan arrimahaas arkay ayaa waxaan ayru meesha dad ma jooge bal 4 suugaana ku tuur kulay baraarugaano ay xaqooda soo dhacsadaan ayadina dhibaata iga soo gaadhay gabaygaas marka wuxuu ahaa haddaan idin kugu celinayaa xaq ayaga inaan goobano
oongabay ku sheegno waana la gashayeeyaan la oran waa si gooniye goortii galmudugna lagu daray iyo maamul goboleedkan goobjoog waxaan soo ahayn tan iyo guuleeda waa Cabdikariin Xuseen Guuleed tan iyo guuleeda iyo xaaf markuu labada garab meel isugu geeyay waa garabka ahlu sunna iyo garabka kale markuu isu geystay iyo xaaf markuu labada garab meel isugu geeyay geelooda niman baa shubta galin horaadkii ragna koodu waa guulaya oodna lagu gooyay in cadaalad geed dheer la suray garay dadkaygii garbaa la hor dhigaa madaxaday gacan bidxaysaaye 2 sano gubaa dheer intaad gayigan joogteene mashaariicda galmudug ay heshay oo meelo badan gaaray gaari booliis baa nagaga yimid iyo golaha deegaane gaari booliis baa nagaga yimid iyo golaha deegaane wax kale oo na soo gaaray male tan iyo goortaane gaawahan culaynay iyo hashaan gorofta xoolaynay 5 goor liskeedii maxaa galina noo diiday maxaa gaaxda nimansiye gaarka naga yeelay 4 qaybood markay qaaytaan qayb xataa ma ogola 5 goor liskeedii maxaa galina noo diiday maxaa gaaxda nimansiye gaarka naga yeelay galbiska soo dhaweynta iyo bulshadan sacab garaacaysa taageeradan ku garab taaganahay goor iyo ayaamba godol kuma qabnee saamigii goysay waa hore miyaan geela kala soo canaanin iyo gaarkiis tabashada shashinkeedii go'ay iyo cara isgaargaadhay goortay xargaha goosato oo shacabku guulaabo garab orodka soo celintu waa gaxandha jiirjiire sida muuse geel diday waxara goobisay noqon muuse waka sooliya sanad uu goobahaya markuu tabashadoodii daaweyn waayay sida muuse geel diday waxaro goobisay noqone inta aan giraantu isbedelin oo la kala guurin madaxweyne gadaal wuxuu dhugo godobta daaweyso ballantusa waxay guul dhashaa gudashadeedii dhowr sano ka hor buu socdaal wuxuu ku maray balanbalas wuxuu gogol nabadahan dhigayaa dagaalkan anaa joojinahay dibna uguma soo laaban ballantusa waxay guul dhashaa gudashadeedii goysmadu rag waa kala dishaa gaala iyo islaane socdaalkaagii goor hore ahaa eed balanbal soo gaadhay gogol nabada adigaa fidshay oo riday guddoonkaase gadaal ugumaad soo laaban oo aad ka gudubteene sidii baa dagaal la isku galay dhiigu galaclayne la isuga gudbo darisku waa isgowracahayaaye waxa meydka loo kala gurtaa labada geesoode nimin yahow dadkiinii go'yo goosan baa haraye dhaartaad gasheen iyo xilkii gudanba maysaane haddii dhaliisha goobteedan dhigay waa laga garaabaaye madaxweyne gadaal wuxuu dhugo godobta dadaaweyso gabaygaasaan horta qoorqoor iyo maamulkiisu u tiriyey ma garan waxa weeye marka dhallinyaroy kacdoonka caawudaaq iyo nabadeeda ha ku meeraysanine idinkaa shahaadooyin iyo jaamacada watee ama afkiina ku gabiya ama mudaharaad sameeya ama idinkaa yaqaan markii wafdi aad aragtaan buraanbur iyo soo dhaweyn iyo geelqalis iyo hilib ha ugu maqnaanina soomina garan haddii cid wax ku helayso ay wax lagu helayo bahalkii taageero cid wax lagu helayo ummado badan baa taageero wax ku heli lahaa dawlad ninkii albaabkeeda garaaca oo iska dhiciya oo runta u sheega oo xaqiisa ka dhacsada wax ka hele ninkii raalli ku ah hadda raallidaas ku gowracay cidna wax ma siinayso wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh